بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب ديال سو دواada walaalahay maanta waxaan noo wadaa cabitaan aad iyo aad u fiican oo u fudud laba shay bes ka kooban aana ka dareemi doonta nafsadaada gudaha iyo korkaba kaa qurxinayo oo calooshana si fiican kuugu jilcinayo kuu nadiifinayo qabsinadaada mindhicirada meel kasta qurux inside iyo outside baa ka noqonaysa insha Allah cabitaankan haddaa hal week cabtiin asxaabi waa ka heli doontiin soo tijaabiya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad sida aniga ka dareemay mise uga heli doontiin wax kasta oo fiican mise nafsadeena u fiican waa idin soo gelinaya idinkana ila socda insha Allah cabitaankan hal week haddaa cabtid gabaray waxa waaye gabdhaha wajiga madmadowga kule iyo wax dhan uu kaa sifaynaya cabitaankan wuxuu ka kooban yahay salariga aad iskaga dhaqa insha Allah salariga saaid u soo nadiifinaya insha Allah waxa waaye waxa dhex geliya biyo inaad dhex gelisid waaye dhexda asas uga nadiifisid labada af ka soo jirtid insha Allah cabitaanada fiican waxyaabaha naturalka oo laga faa'iideysto waa noo soo yaryareynaa wax yaraan saas dhexda uga jaraya wax weyn ma ahan mishinta inuu isku laalaabo mar wadaas waa wax yar u gaabinaya marka wax yar oo simple oo fiican oo ku anfacayo waaye salarigaas oo hal sacab hal gacan camal waaye labada af aan soo jaray si fiican iskaga soo dhaqaysa insha Allah intaas bis waaye wax weyn kaama rabo iyo waxa waaye liintaas iyo salariga dadka qaar waxay dhahaan wuu qaraar yahay ma qaraar salariga aad u macaan yahay waxaad u adkeysan karin caraf saaid uu leeyahay too much qofka dadka qaar waa caraftaas dhibeyso ani waan jeclahay ani carruurteyda maasha Allah saytaa u cabnaa cabitaanka intaa qabowsatid haddaa cabtidaan ku dhahay waa noo soo jijiro soo fiiqa ujeedin hadda mishintaa ku shubaya barafkaaga ku darsanaysaa sokor xataa kaagama baahno liinta macaan biyahaba sokor laguma daro tubada sidoodan ku cabnaa waa cabitaanada sokorta uga buuxinayna ma isweydiina sokorta caafimaad ma aha iska dayno insha Allah gabdhaha haaraha leh wajiga haaraha kule oo meeshaan maxaa la jiro wax kasoo babaxaan oo kaleeto calooshaada haddii bahal ku jiro haddii xididadaada qabsinadaada waxaas dhan xiran yihiin cabitaankan aad ku anfacaya adiga dhan wuxuu ku siinaa shaynin qurux one week haddaa cabtidaan ku dhahay magaalada dhan adaa iskale dhalaalkaaga iyo shayninkaaga shacnigaaga waa yaabaysa adaaba is cayuumaysid markaa saas u soo miiro xataa qashinka aan ka miiro asxaabi ani ma daadinayay korkaygaan ku rogayaa weji gacan lug meel kasta waxaa isleedahay qoftan maanta dhan may dabaal ku dhex jirta walaahi markaas ku rogtid oo marsatid korkaaga dhan isla markii isbedelaya qurux cabitaankan iyo beetrootka waa markaa miirtiin qashinkaas aa ka miirtiin ha tuurinina korkiina ku nadiifiya aad iyo aad uga heli doontiin insha Allah soo tijaabiya cabitaan yaro qabow oo maxaa la dhihi jiray aad iyo aad u qabow waa cabitaanada jannada lagu sheego kamid yaa u maleena iska dambaabi ilaahay cafiye cabitaankan la soo tijaabi asxaabay waxaan ku dhahay kor iyo hoos baquur waxa ka noqonaysa wax la ismariyo laguma qurxanaade caloosh wax nadiif ah la geliyo walaalayaal hal isku roonaado maanta dhan ilmaha ka daba wareegayna ilmaha korinayna qofka ilmo korinayn xataa tiisa iska haysata marka sometimes naftaada inaad galaas sharaab oo qabow oo qudaar ku sharaabisid waa waajib qofka awoodin ilaahay ha siiyo cabitaankeena saad suq soo bax markaan soo shaqshaqi waa arkayseen liinta iyo biyaha baraf bes intaas waaye iyo salariga xataa sidiis intaa ku jarjaratiin sidiisa ku cuni kartiin asxaabi aad iyo aadan kugu mahad celinaa sida wanaagsan ay la socotiin dhiirigelintiina walaa waxaad tihiin familigeyga iga mid oo in ka fikiraa markasta waxaan dhahaa maanta maxaa gelisaa ma u fiiriyaa videoga anoo xataa ka caajisan oo rabin inaan duubo sometimes waxaan dhahaa waa lagu sugayaa ku tuura is dhaha marka idinkana waa mahadsantiin